السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخياتك كحرا يوتيوبك مع العقال أدبن دين سلام يا إن شاء الله تعالى وحنرب إن كان أمانة إن كل ولاجو مقال يرى كوان أو آد إن حسوا ورنتي نرشينا إن شاء الله تعالى وحبدا كبدري دونا أنت المقال كأجلين أخياتي إن لما أنتين وحن إن كعذر دارنا يا maadaama maalmahan aan muuqaal soo gelin ilaa soonkii kadibna fasaxyo iyo mashquulaad kale waxba ila tagay marka aad baan taas kaga cudurdaaranayaa haddii aad gaalkacay ku sugan tahayna waxaan kugu casuumayaa seminaarka ah sidii loo bedelaa caadooyinkaaga ama bedel caadooyinkaaga si aad noloshaada u bedeshid kusoo dhawaada insha Allah taala waxaan rabaa halkan inaan kula wadaago maanta afar calaamadood oo muujinaya inaad wadada guusha cagta saartay. waxaan filayaa in qof walba uu jecel yahay in uu dareemo inuu ku socdo jidka guusha. kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. وما سنتنا أخياري مركز soo dhawaada horta marna ma isu weydiisay waxa dadka guuleystayaasha ah ka dhiga guuleystayaal farqigu muxuu yahay maxaa sababa in dadka qaarna aysan wax horumar ah samaynin dadka qaarna ay si sahlan ku guuleystaan haddii aad tahay qof leh astaamaha soo socda runtii waxaan rajaynayaa in dhowaan aad noqon doontid qof guuleysta insha Allah way waxaan bilaabaynaa marka astaamaha lagu garan karo in qofka uu wadada guusha cagta saaray. astaanta koowaad waxay noqonaysaa dadka guuleystayaasha ah waxay leeyihiin caado sarreys. ma ogtahay in caadooyinku go'aamiyaan 95% habdhaqanka qofka. caadooyinka liita sida cabida sigaarka, salaad la'aanta, mobilka oo la iska daawado si xad dhaaf ah waxa iska leh dadka guul dareysayaasha ah. caadooyinka wanaagsan sida xilli hore qof inuu kaco, inuu qofku wax akhris joogta u sameeyo, qofku inuu jimicsi sidoo kale uu sameeyo waxa iska leh dadka guuleystayaasha ah ama se dadka wadada guusha ku socda. marka haddii aad tahay qof caadooyinkiisu wanaagsan yihiin oo xilli hore kaca wax akhriska kala duwan sameeya, jimicsi leh, dadka si fiican ula dhaqma, caadooyinkiisu ay wanaagsan yihiin waxaad haysaa wadada guusha. number 2 astaanta labaad waxay noqonaysaa dadka guuleystayaasha ah waa dad iyaga iswada. dadka guuleystayaasha ah qofna kama sugaan in uu howlahooda u tilmaamo, in uu u sheego waxa ay tahay in uu qabto iyo xilliga ay tahay in uu qabto. dadka guuleystayaasha ah waa dad garanaya waxa iyagu ay doonayaan, sida ay rabaan inay u qabtaan. waxay isku dayaan in ay hore u socdaan maalin kasta oo ay wajahaan nolosha dhabta ah. meel kasta oo ay dheef ku maleeyaanna waxay diyaar u yihiin in ay dhibkeeda bixiyaan. halka dad badan oo inaga mid ah ay sugaan inta nasiibkoodu cirka ka soo dhacayo, inta loo tilmaamayo waxa ay qabanayaan. haddii aad u fiirsatidna dadka noocaas waa dadka ugu marmarsiyaha badan adduunka, weligoodna lagama weynayo marmarsiyo iyo cudurdaar. astaanta saddexaad ee muujinaysa inaad ka mid tahay dadka guuleystayaasha ama aad cagta saartay wadada guusha waxay noqonaysaa dadka guuleystayaasha ah waxay kalsooni ku qabaan awoodooda. ma ogtahay inay jirto laba cadow marka laga hadlayo guusha. number 1 cadowga koowaad waa ka shakinta naftaada. cadowga labaadna waa ka cabsashada wax kasta oo aadan garanayn. kalsoonidu ma dhaafto inaad naftaada aamintid, waa inaad naftaada aamintaa xilliga uusan qof kale aaminsanayn inaad waxaad samayn kartid. ma waxaad tahay qof aaminsan in uu ka dhabayn karo ballanqaad kasta oo uu u sameeyo naftiisa, mise waxaa tahay
qof caajislow ah oo aan carruurta waxba dhaamin. inta aanan u gudagelin astaanta u dambaysa ee afraad, haddii halkan nala soo gaartay saaxiib muuqaalka laag saar, haddaad nagu cusub tahayna subscribe waa inoo muhiim. astaanta afraad waxay noqonaysaa dadka guulaystayaasha ah waa kuwo kobciya maskaxdooda. ma ogtahay dadka guulaystayaasha ah inay ka siman yihiin wax akhrinta? wax akhrisku wuxuu kobciyaa maanka bini'aadamka. ma maqashay in dadka qofka ugu isticmaalka badan maskaxdiisa uu isticmaalo keliya 2%? markaad wax akhrisid waxaad ogaanaysaa waxyaabo badan oo bulshada ka dahsoon. runtii waxaad noqonaysaa qof la xushmeeyo isna dadka kale xushmeeya. waxaan filayaa in caadooyinkan ay ku anfici doonaan oo aad ku dadaali doontid sidii aad caadooyinkan u joogtayn lahayd oo aad ka mid noqon lahayd dadka guulaysta ama wadada guusha haya. aad baad mahadsantihiin. waa macnaheedu leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. haddii aad eeriga galkacyo joogtidna seminaarkii ahaa sidee loo bedelaa caadooyinkaaga waan kugu casuumayaa. aad baa u mahadsantihiin.